السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني سلامي دمان بهذا كحران channelka Munye Tech soo dhawaada dhammaantiin intaan videoga gudaha u sii galin maanta videoga aan idin wado waxaa ka horeeyo inaan isla aragno waxaan sameeyay blog oo aan ku talagalay bahda ka faa'iideysato channelka Munye Tech kaasoo aan kaga hadalno waxyaabaha quseeyo tiknoolajiyada blogan waxaan ugu talagalay wuxuu u shaqeeyaa cashir walbo la soo geliyo YouTube-ka waxaan soo gelin doonaa blogan waxaadna ka faa'iidi doontaa asagoo ah qormo ama qoraal asagoo la soo qoray waana la degi kartaa xogo dheeraadna wuu wataa doonaa Munye Tech kadib waxaan dhihi doonaa go so markaan Munye Tech go dhaho hoosaan usoo degi doonaa waxaan ugu qoran blogger Munye Tech aan furi doonaa so markaan furo Munye Tech meeshaan waxaan ugu qoran saddex waxaa ku jiro content ama ciwaan mid wuxuu ka hadlaa Python waa programming mid wuxuu ka hadlaa learning trade bot asna waa barnaamij ku saabsan forex-ka crypto-ga iyo stock-ga waa bot-ka hadda Soomaalida ay ku kacsan tahay sidoo kale Microsoft Access waa barnaamij shirkadda Microsoft ay soo saartay waana barnaamij loogu talagalay database-ka mid walba wuxuu leeyahay markaa ku rufatid barnaamijka ciwaankii iyo waxyaabaha nuxurka leh qoraalkii waxyaabaha Python-ka ee tahay sida loo soo dejiyo barnaamijka sida loo qoro code-ka waa kan adaartidna meeshaan kala degi kartaa soo video ee waa kan programka iyo isoo la sameynayo so marka insha Allah halaga faa'iideysto maanta waxaan ka hadli doonaa barnaamijka caanka ah ee loo yaqaano ChatGPT muxuu yahay maxaana loo isticmaalaa barnaamijka ChatGPT waa barnaamij AI ah ay soo saartay shirkadda loo yaqaano OpenAI waxaana loo sameeyay in looga faa'iideysto su'aalaha bini aadamka u baahan yihiin in ay ka helaan faa'iidooyin badan su'aalo kaliya looma sameyn waxaa loo sameeyay qof walbo in uu ka heli karo wax walba uu u baahdo wax walba uu weydiiyona uu ugu soo jawaabayo haddii uu database-ka ku jiro so marka waxaan ka hadli doonaa qaabka loo sameeyo barnaamijkan loo isticmaalo iyo account sida loogu sameysto barnaamijkan laba noocaan isticmaali doonaa in aan website-ka gudaha u galno oo meeshaan ka soo dhex isticmaalno iyo in aan application la soo degno si aan u isticmaalno barnaamijka so intaan videoga bilaabin oo gudaha aan u galin haddii channelka ku cusub tahay subscribe saar oo asxaabtaada la wadaag oo share garay si ay uga faa'iideystaan ayagana insha Allah sidoo kale hada videoga ka heshaan like saar si dad badan uu u gaaro videogan insha Allah number 2 waxaan ka bilaabi doonaa sidee loo booqdaa website-ka caanka ah ee ChatGPT waxaan tagi doonaa Chrome-ka every browser ama browser walbo aad isticmaasho waad ku isticmaali kartaa ani hadda waxaan isticmaalaa browser-ka loo yaqaano Chrome-kan furi doonaa waxaan ku qori doonaa barnaamij ah ChatGPT aan qori doonaa markaan qoro ChatGPT waxaan dhihi doonaa go so markaan dhaho go waxaa ii soo bixi doona barnaamijka ama website-ka saxda ah ee leedahay shirkadda OpenAI ee barnaamijkan ChatGPT ee ku sameysay so waxaan furi doonaa barnaamijka open aan leeyahay so barnaamijka markaan furo waxaa ii soo bixi doono get started inaan isticmaalo barnaamijkan account aan hore ugu lahaa inaan ku isticmaalo ama account cusub inaan sameysto so aniga account hore ma ugu lahayn meeshaan waxaan sameyn doonaa waxaan dhihi doonaa login so markaan login dhaho waxaan ku tusin doonaa waddo fudud oo ku booqan kartid barnaamijkan login markaan dhaho wuxuu idhi doonaa kusoo laabato email address-kaaga halkan geli so aniga account hore uma lahayn aan dhahay waxaan isticmaali doonaa saddexdan midkood haddii account aan lahayn midkan waa isticmaali kartaa Google inaad ku dhex isticmaasho Gmail-kaaga caadiga ah Microsoft account inaad ku dhex isticmaasho ama Apple account inaad ka dhex isticmaasho so ani waxaan isticmaali doonaa Google-kan isticmaali doonaa waxaan ku dhufan doonaa Google so markaan ku dhufto Google waxaa ii soo bixi doona barnaamijka ama barnaamijyada ku kacsan Google ama Gmail-ada ku kacsan taleefankayga qaybta Chrome-ka midka aan rabaan ka dooran doonaa so waxaan dooran doonaa midkan koowaad ama midka labaad midka aragtid dooro Gmail-ka aragtid ku xiro so Gmail-kan ku dhufan doonaa account-ka markaan ku dhufto
waxaa ii soo bixi doono magaca aan ku sameysanayo. So magaca aan ku sameynayo waxaan dhihi doonaa tusaale ahaan Munye Tech. waxaan u bixin doonaa barnaamijkeena ama akoonka aan sameysanayno Munye Tech. tusaale ahaan 1997 ama something waxaad sameysa adi waa test tijaabo waay. Agree aan leenahay. So markaan dhaho agree waxaa ii soo baxay meeshan verify waa inaa xaqiijisaa inaa bini aadan tahay, because website-kan waxaa soo booqan karo waxaa la cadeynaa inaa robot tahay iyo inaa bini aadan tahay. So begin Boozle aan leenahay. Begin Boozle markaan dhaho meeshan waxaa kasoo baxayo waxaa lagu dhahay use the arrow. waxaa isticmaashaa falaarta to rotate the object si aa u wareejiso shayga. shaygan waxaa u wareejin doontaa lagu dhahay direction of the hand. gacanta meeshaan taalo baskan waxaan u wareejin doonaa qaabka ay gacantan u taalo. So waa falaarahan waa isticmaali doonaa. Okay, waa ujeedaa hadda baska wuxuu usii jeedaa dhinaca saxda. waa boobsiin doonaa. Verification complete. Verificationka uu gabagaboobay uu dhamaaday. So waxaa lagu keeni doonaa marka website-ka caadiga ah. Okay, let's go aan leeyahay. meeshan waxaan ku qori karaa marka waxa u baahanahay. So version-ka hadda la isticmaalayo waa 3.5. message-ka meeshan aan ku qoray. tusaale ahaan hadda message waxaan rabaa inaan diyaariyo imtixaan ama exam-kaas oo aan ugu talagalay inaan arday ka qaado. exam-ka ma aqaani laakiin jabtarka magaciisa aan qori doonaa. waa fahmay ama leena laba qaab oo isticmaali kartaa inaa word soo diyaarsato. wordkaas jabtarka aad ku soo diyaariso, text ku qoran inaa soo koobiyeyso oo meesha aad soo geliso, iyo in maskaxdaada aad ka keensato. tusaalahaan waxaan dhihi doonaa make an exam. waxaad ii sameysaa ama waa make an exam, imtixaan samee. imtixaankaasoo contain ka kooban tusaale ahaan 5 multiple choice and 5 true and false questions within adiga oo ka diyaarinayo jabtarkan loo yaqaano differential equations. kadibna waxaan leenahay search. calaamadda ku dhufan doonaa. wuxuuna sameyn doonaa imtixaan diyaarsan oona ka kooban waxaan u sheegay waxaa waaye in uu ii sameeyo imtixaan ka kooban goobogelis iyo sax iyo qalad. So waa arki doonaa qaabka uu sameeyo. uu dhammeynaa waa process u wadaa. Okay, kan hoos u deji. waa ujeedaa wuxuu ii sameeyey barnaamijkii differential equation-ka ah. waa kan meeshan wuxuu ku qoray multiple choice oo questions ku sameeyey, kaas oo aan kasoo qaatay jabtarka loo yaqaano differential equations. waa kan multiple choice number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. true and false na muxuu sameeyey number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. waa ujeedaa. So barnaamijkan waa barnaamij aan caadi ahayn in badan, because arday, macalin, qof walba ka faa'iideysan karo, ganacsade xitaa uu ka faa'iideysan karaa. su-aalaha qaabka u weydiisid haddii uu database aqoonsan yahay, su-aalahaas u weydiisid jawaabahoodu kuu siin doonaa. So hadda waxaan fahanay application-kan sida loogu dhex isticmaalo Chrome-ka ama browser-ka ama website-ka sida loogu dhex isticmaalo. in videogeena wuxuu ku saabsanaa ChatGPT. haddaad videoga ka yeeshay like saar. haddii janalka aad ku cusub tahay subscribe saar. sidoo kale asxaabtaada la wadaag si uu videogan dad badan u gaaro ay ugu faa'iideystaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.